jacayl halkan inaan baaq ka diro baaq nabadeed oo ah shaqaaqa ka dhacday gobolka Sanaag beelo wada degaa oo walaala ah meesha la yiraahdo Armaale iyo daaga aaga u dhow oo dhaqsimeeda ilaa shalay halka waxa ka socday dad walaala oo isku degaan in dagaal dhex maray dhimasho badan iyo dhaawac badan ay kala gaadheen baaq nabadeedan diray waxaan leenahay wax garadka iyo salaadiinta iyo odayaasha inay ka qayb qaataan sidii dagaalka loo joojin lahaa oo soo noqnoqday sidana warku ku hayna khasaare fara badan keenay xukuumaddu shir bay ka gashay degdega ciidamada qaranka iyo ciidamada amniga ee kala jiida ku sugan waxa lagu amrayaa inay dhaxaadin ka qaataan oo kala joojiyaan beelaha walaalaha ku dagaalamaya iyaguna waxa uu leenahay ciidamada ay kala dhex galaya wayna gacan siisaan hadaa tiin odayaasha hadaa tiin wax garadka waxaan taasi u dirayaa eelkii qaraabadii ay ka dhinteen dhimashada fara badan oo dad abtirsin ahaan iskuna degaana walaala waxa leenay wixii dhintay way dhinteen nabadgelyada gacanta lagu sugo ciidamada qaranka kuwa blaiska ee gobolkaas Sanaagna waxa leenay hawsha degdeg wax uga qabta kala dhaxgala heshiisiinta iyo nabadgelyada sideedii lagu soo celiyo baaqa ugu weyn maanta direeya kaas weey waxaan jecel inaan ku daro aan reer Soomaaliland u sheego 18 May way nagu soo dhawey gudida wuxuu saaray madaxweynuhu qabanqaabada saaka kormeer badan baan soo sameynay waxaan kormeernay ciidamada ka qayb galaya ka kooban ciidamada oo dhan saaka lixdii waxaan soo kormeernay ganacsada weyn ka qayb qaatay jeer maalintaasi sagal chat oo ugu mahadnaqay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha waxa fiiskii weynaa sameeyay waxa maanta way ka duwan tahay tii kale hore inuu sameey jirtay maanta aqoonsi baynu haysanaa wadamo badan ayaa imanaya waxa la doonayaa qof waliba inuu ka dabaaldego gurigiisa hodelkiisa maqaaxidiisa dukaankiisa inuu calankiisu waxaana waxaynu ku guuleysano in qof waliba nabadgelyada ka qayb qaato qof waliba police uu noqdo maadaama markaynu ictiraafka helay xasadku batay cadowgu batay horumarka dadkaasi aad iyo aad uga xun yihiin anigu aad iyo aad uga xun weyn oo shacbiga u rajaynaya basbashiya barwaaqo sanad guurada 35 in ictiraafka inuu ku gaadhno haddana foojignaan gaara ayaan shacbiga leenahay ogaada qof waliba wuxuu garawaayo waan cilmada amniga soo wargeliya aad iyo aad baan idin salaamaya dhammaan shacbiga Soomaaliland wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh